dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia magaala madaxda state-ka waxa weeyaan Jigjigo dhulka uu gobolka ku fadhiyo waxa lagu qiyaasaa 279,252 kilometers population-ka gobolka tirakoob la sameeyay 2011kii waxa ay gaareen 5 million gobolka waxa uu xuduud la leeyahay dalka Kenya, Djibouti, Somaliland iyo koonfurta Soomaaliya. xoolaha gobolka ku nool waxa ay kala yihiin lo, laxa, ari, geel. haddaba qiyaasta xoolaha halka ku nool waxa weeyaan lo'da 670,280, laxaha halka ku nool waa 6,410,000, ariga ku nool gobolka waxa lagu qiyaasaa 5 million, geela gobolka ku nool waxa lagu qiyaasaa 1 million. dowlad deegaanka Soomaalida waxa soo maray 10 madaxweyne. madaxweynaha tobnaad magaciisu waxa weeyaan Cabdi Maxamuud Cumar. jagada kursiga waxa uu la wareegay bishii 7 2010. haddaba gobolka Soomaalida ee degto ee Ethiopia waxa horaan looga sheegi jiray in dhibaatooyin ay ka jiraan abaar isbiirsaday siyaasada aan hor u socod lahayn. markaas u socday galay markaas lagu dhuftay degmada dhagax madow abuu dhintay isagoo intuu soo baxay. madaxweynaha tobnaad Cabdi Maxamuud Cumar oo jagada la wareegay bishii 7 2010kii waxa uu gobolka ka bedelay waxyaabo aad iyo aad loo farfiiqi karo. gobolka Soomaalida ee degto ee Ethiopia horaan qurbaha uguma uusan lahaan jirin taageero. inta badan jaaliyada u dhalatay gobolkaas ee qurbaha ku nool waa ay ka soo horjeedi jireen waxa ayna taageeri jireen ururka mucaaradka ah ee ONLF. dadkeena Soomaaliyeed Ethiopia meel bay naga soo haraysaa marka waa inaynu dhammaan isu taagnaa inaynu Ethiopia iska celino. والسلام عليكم ورحمة الله. حرويانة 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 نغويانة حرويانة دابا قادي داني مينا داني مينا ملا سناوي داني مينا داني مينا داني مينا داني مينا هذا الصومالي دي بيسقون نقطة أنا قال ما عايقة حليمة حاجة عليا أو جالية أوغادين يا كسادة ورنا كقابننا ورنا مدونو أنا وحدنا ناي قبل كأوغادية دتك كسوتشة Soomaalida وحنو تاجناي دمير كSoomaalida نو تاجناي Soomaaliga فيو إن ويانو فريني نو تاجناي. أنا مقعد وحالنا عبد الحكيم عن الحديث أنا أوجس عن الحديث ويلكي سوانا هاي أنا وكذا يا madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar markii loo doortay kursiga madaxtinimada waxa uu wax ka bedelay siyaasadda dibadda. waxa uu xiriir aad iyo aad u dheer la sameeyay jaaliyadaha dibadda ee ka soo jeeda gobolkaasi. ugu horeen haddaan soo qaadano gobolka Minnesota ee dalkani Mareykanka ayuu madaxweynaha waxa uu ku yimid safar 2011 bishii 2. waxa halkaas ku soo dhabeeyay dad aad iyo aad u tiro badan qiyaastoodana lagu qiyaasay in ay gaarayaan 5,000 ilaa iyo 6,000 oo qof.
دوني نبات هتبدعي وقتيك تبريدا حلقة أنا داهينو صوتا وأنو إيمود الحيس أنا داهينو صوتا وأنو إيمود الحيس isbeddelka inta la eg maxaa sababay su'aashaasi waxaan weydiinay jaaliyadda Minnesota ee ka soo jeeda gobolkaasi hormuudkooda bismillaahir rahmaanir rahiim arintan waxa ku soo koobi karaa runtii laba arrimood waa mid koobaad waxay ahayd ururadii nabadda qaatay sida ururkii ONLF garabkii golaha sare iyo ururkii UWSLF oo Sheikh Ibrahim hogaaminayay talabaad iyaduna waxay noqonaysaa maamulka cusub ee DDS ee uu hogaaminayay mudane Cabdi Maxamed Cumar oo runtii isaguna la yimid hanaan ka bedelan hanaankii hore ee maamuladii ka horeeyay oo noqday mid soo jiidasho leh waxyaabahaas bay ahayd waxyaabihii ka dambeeyay taageeradan uu maamulku helay waxaa gobolka ka dhacay isbeddel weyn oo xagga horumarka ah haddaba madaxweynahani waxa uu kasbaday shacabkii dibadda iyo shacabkii gudaha ku noolaa haddaan shacabka dibadda ku nool soo qaadano shacabka uu kasbaday waxa ay gaarayaan 3 meelood markii loo dhigo 2 meelood in ay hadda ku qanacsan yihiin maamulka uu hogaamiyo Cabdi Maxamuud Cumar oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida jaaliyadda ka soo jeedo maamulka DDS ta ee horaan u taageeri jirtay ONLF oo hadda taageeraan maamulka cusub ee DDS ta haddaba ururadii heshiiska qaatay ururada ka matalo gobolka Minnesota ayaan waxa aan weydiiyay su'aal ah maxaa ay ku qanceen oo ay ku taageereen maamulka DDS ta ee uu hadda hogaamiyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar waxaanu macnaha ku qanacnay oo aan u qaadanay waxa kamida maadaama uu wadanku muddo badan dagaal ka socday dagaalkiina xal lagu waayay waxaan ummadda ugu baaqnay inaan isu sheegno sidii aanu xal u heli lahayn dadka aanu ugu yaraan lahaayeen macnaha dhimashada iyo dhibaatada iyo rafaadka maadaama oo in badan ay colaado ka socotay meesha wax horumarna uusan lahayn qorigiina uusan macnaha wax uu keenay oo xal uusan jirin ayaa waxaan isla afgaranay in aanu ku raadino sida ay ku jirto dadka maslaxadooda oo ay ka mid tahay macnaha horumar la'aan iyo wadanka oo in badan muddo dagaal sii socday soo markaa waxaanu niri in ay noola qumantahay inaan Ethiopia aanu wada hadal la samaysano oo ay ka mid tahay sidii aanu xal u gaari lahayn ummadda badbaadinteeda soo markaa Ethiopia way naga yeeshay markaa dadkii waxaanu isku wada afgaranay in mataqaanaa yani horumar la'aan ay meesha ka jirto si deegaanada kale ay u soo gaaraan muddo badanna aad moodo in colaadu ay meel gaar ah ay saameysay haddana waxaanu aragnaa in macnaha ujeedadii aanu lahayn aanan runtii wada gaarin laakiin aanu mid
qaar la taaban karo aanu ka gaarnay. jaaliyadda u fidisay taageerada maamulka cusub ee DDS-ta waxa ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin in gobolkii ay ka soo jeedeen uu maanta isbedel la taaban karo uu ka dhacay. haddaan waxaan nin raga u aqaanaa hadday maxaan ku raacay caruurtooda keeneen waan ogtiin guddida fulinta maxamed ismaaciil ka bilow maxamed cumar ka bilow ee ku xigsi cadaani dhammaantood hadday run sheegayaan caruurtooda tarahii baa gaadhay waqtigii baa gaadhay caruurtii kale way dhammaatay ogaadeen waa waqtigii caruurtooda ha yimaadaan wallaahi oo billaahi soo ma dhaaran haddii eeg waan dhaartay haddii maxamed cumar cismaan hadduu ma taqaanaayay halkaa wiilashiisa ingiriiska waa ogtihiin dadka u joogaya maraykankaba hadduu wiilashiisa keeno oo afar ka mid ku dhintaan run buu sheegaya waan dhihi lahaa laakiin haddii wiilal yaryar oo kuwa wiilashiisu waxbarashada adduunka ugu qaalisan inay ku jiraan wiilal kale oo ogaadeenna ma taqaanaa dab lagu shubay aad baan uga xumaa arrintaas anigu waxaan aaminay niman yahow lacagta gurguraya hadday run sheegayaan hadday ninka culimmadii markuu ku leeyahay salaada tuko hadduuna isagu tukanayn ka hor maskax kasta oo fiyow waxa ay isweydiinaysaa jaaliyadaha qurbaha ee ka soo jeedo maamulka DDS-ta ee Itoobiya ee horan u taageeri jiray ururka mucaaradka ONLF balse maanta ay taageeraan maamulka halka ka jira ee Cabdi Maxamuud Cumar sideebay ku timid sideeba looga gaday siyaasadda dawlad deegaanka yaase u dhabar adeegay in ay ka dhaadhiciyaan jaaliyadda in uu isbedel ka dhacay gobolka ay Soomaalida degto ee Itoobiya su'aashaasi waxa aan weydiiyay hormuudka jaaliyadda ee ku dhaqan gobolkan Minnesota horta dadaal badan iyo waqti badan baan gelinay arrinta ugu muhiimsan ee naga caawisay waxay ahayd horta waxaa burbur ku dhacay ururkii ONLF ee dadkani markii hore uu taageeri jiray ay siyaasadiisii mid burbur ku dhacay tu laga hogaamiya Caasmara tu danihii halgan iska bedeshay bay noqotay taas bay ahayd markaa midda noo fududaysay inaan kasbano dadka dhinaca kale runtii maamulka jigjiga ama maamulka DDS ee cusub ee hadda hogaaminaya mudane Cabdi Maxamuud Cumar budhigiisu wuxuu la yimid dadaal badan oo aan jahliyaadkii markii aan hor istaagno ama wax macquul ah u sheegi karo yani oo aan soo jiidasho leh iyo budhigiisu la yimid uu ka bedelaa maamuladii hore runtii waan dhihi karaa oo kale iyadana in oo xaqiiqda iyadana aan laga iska tirinin xilli waqtiguna uu jiraa meelaha oo waqti dadku baahidan uu qaban way ahayd in uu isbedel sameeyo waxaa kaloo iyadana kulli xusid mudan oo iyadana aan kulli baanan dhaafaynin inay jireen macnaha xubno kooban ama dad kooban ama oo dadaal badan iyaguna sameeyay oo awalba iyagu sii taagnaa oo arrimaha nabadda u taagnaan jiray marka waxyaabahaas oo iskaashaday baan dhihi karaa way sababtay ama way noo fududaysay taageeradan hadda DDS la siiyey haddaba jaaliyadda gobolka Minnesota ku nool ee taageerto maamulka DDS-ta ee hadda hogaamiyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar jaaliyadda ayaan waxaan weydiinay maxaa ay maanta ku faani karaan taageerada ay u fidiyeen maamulka DDS-ta waxaan ku faani karnaa waxqabadka aanu ka qabanay haddana jaaliyadda Minnesota inaan dhammaan ummadii aan mideyno kana dhigno ummad nabadda wada qaatay waxaana kale oo si wanaagsan oo walibana sharaf leh lagu faani karnaa inaan keenay madaxweynihii kilka inaanu ku soo dhaweeyno magaalada Minnesota oo uu ku aweeyo
hoteelaadka waaweyn ee ku yaala magaalada inuu yimaado mall 24 inuu ka hortiisa inuu soo istaago inuu tago kafeteriyada iyo meelaha kafeega lagu cabo inuu hor istaago iyada oo nabada saas la aligeed waxaanu ku faani karaa marka inaan nahay jaliyadii u horseeday nabadda gobolka aanu ka soo jeedno ee kilka shanaad shacabka ka soo jeedo dowlad deegaanka Soomaalida dal iyo gudaba waxa ay qireen maamulkan cusub ee hadda ka jiro dowlad deegaanka Soomaalida in uu isbedel dhab oo aan horaan uga dhicin gobolka uu ku soo kordhiyay sidaas darteedna ay wada sheegeen in ay ku wada faraxsan yihiin dowladooda iyo maamulkooda ayadoo horaan aysan jirin qof Soomaali ah oo calanka Itoobiya wato balse maanta gobolkan aan joogno ee Minnesota magaaladiisa Minneapolis waxa ay indhahaaga qabanayaan dad Soomaali ah oo gaariyadooda iyo guryahoodaba ay ku dhagan yihiin calanka Itoobiya iyo kan maamulka Soomaalida calankiisa barnaamijka waxa idin la socodsiinayay aniga oo doqbilow waxa igala qayb qaatay jaaliyada reer Minnesota ee ka soo jeedo dowlad deegaanka Soomaalida madaxdooda iyo shacabka caadiga ahba tan iyo intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waxaan hawada idin marinayaa aniga iyo asxaabta Waryaa TV ba sidaas iyo mac salaamo